kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xiliyadani oo kale aad noga barateen qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada SSC Khaatumo oo jawaab kulul siiyay militariga Somaliland oo sheegay in laasacaanood ay ka dagaalamayaan al-shabaab iyo kooxo kale oo argagixiso nabadiida wafdi xildhibaano ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo 15 sano kadib gaaray laasacaanood kulan la qaatay garaadada iyo waxgaradka SSC Khaatumo xilli laasacaanood ay xor tahay bil iyo maalmo oo laga saaray ciidamada Somaliland maamulka Somaliland oo ku guul dareystay qorshaha uu ku doonayay in ciidamada SNM ay la wareegaan laasacaanood iyo ciidamada SSC Khaatumo oo sheegay in ay ka go'an tahay difaacidda deegaankooda qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa muddo 15 sano kadib gaaray wafdi xildhibaano ah oo uu horkacayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare xildhibaanadan oo ka soo jeedo gobolada SSC Khaatumo xildhibaanadani uu horkacayay Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa gaaray laasacaanood oo muddo 41 maalmood uu dagaal u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka SSC Khaatumo ka soconayo wafdigan waa wafdigii ugu horeeyay ee ka socdo dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo 15 sano kadib tagay laasacaanood oo uu haystay maamulka Somaliland oo sheegay in uu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale laasacaanood ayaa lagu xoreeyay maamulka Somaliland kadib dagaal dhex maray ciidamada deegaanka SSC Khaatumo iyo waliba sidoo kale ciidanka maamulka Somaliland ee doonayay inuu xoog ku maquuniyo shacabka laasacaanood gudoomiye Cabdullaahi Timcade oo ka soo jeedo Sool ayaa waxa uu helinayay xubno kale oo ka socdo wasaaradaha dowladda federaalka waxaana ay qiimeynayeen baaxadda khasaaraha iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka maamulka Somaliland uu ka geystay xarunta gobolka Sool wafdiga ayaa kulan la qaatay isimada dhaqanka ee SSC Khaatumo kuwaasi oo ay ka wada hadleen xaaladda laasacaanood iyo sidii loo xoojin lahaa gurmadka dadkii ku barakacay dagaalka gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ayaa hore ugu baaqay Somaliland in ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka ka hor intii aysan dagaalada dhicin tagitaanka wafdiga dowladda federaalka ee laasacaanood waxay imanaysaa xilli dagaalkii ugu cuslaa uu dhawaan dhex maray ciidamada Somaliland iyo waliba ciidanka deegaanka dagaaladaasi oo lagu jabiyay ciidanka Somaliland waxaana la sheegay in wali abaabul ay wadaan ciidanka maamulka Somaliland garaadada ku sugan laasacaanood ayaa wafdiga xildhibaanada warbixin waxay ka siiyeen xaaladda guud ee magaalada iyadoo mas'uuliyiintan ay indhahooda ku soo arkeen baaxadda khasaaraha ka dhashay dagaalka socdo wafdiga ayaa kormeer indhaindhayna ku tegay goobihii ku burburay dagaalka socdo oo ay ka mid yihiin goobo caafimaad dhismayaal iyo guryo ay deganaayeen dad shacab ah kuwaasi oo madaafiicda ay ku soo dhaceen burburka xooggan ee soo gaaray dhismayaasha laasacaanood ayaa lagu eedeeyay inay ka dambayso maamulka Somaliland oo la sheegay in ciidamadeeda ay magaalada ku garaaceen madaafiic aan loo meeldayin taasi oo sidoo kale sii badisay khasaaraha ka dhashay dagaalka socdo booqashada mudanayaasha ka socdo labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaana ku soo beegmaya xilli ay degan tahay jawiga magaalada waxaana sidoo kale la sheegayaa in abaabul uu ka soconayo aagga xerada Goojacade halkaasi oo wali ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ciidanka Somaliland waxaa laga xoreeyay gebi ahaanba magaalada gudaheeda ee laasacaanood waxaana ay isugu soo urureen saldhigga kaliya ee Goojacade halkaasi oo sidoo kale ciidamada SSC Khaatumo ay kaabiga ku hayaan ciidanka SSC Khaatumo ayaana sheegay in dagaaladii ka dhacay laasacaanood ay kaga adkaadeen maamulka Somaliland isla markaasina ay fashiliyeen qorshahoodii ay ku doonayeen in magaalada ay ku qabsadaan
saraakiil u hadlay SSC Khaatumo ayaa sidoo kale u jawaabay militariga Somaliland oo sheegtay in al-shabaab ay ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood waxaana saraakiisha SSC ay xaqiijiyeen in Laascaanood waxa ka dagaalamayo ee difaacanayo ay yihiin dadka deegaanka isla markaasina aysan joogin magaalada xubno shabaab ka tirsan saraakiisha ayaa sheegay eedeymaha al-shabaab ay u jeedinayaan ciidanka Somaliland inay tahay mid ay ku marin habaabinayaan shacabka Hargeysa sidoo kalena ay qarinayaan guuldaradii ay kala kulmeen dagaaladii dhawaan ka dhacay Laascaanood waxaan halkan uga jawaabayaa in shalay dagaalkii dhacay nin ka hadlay oo afhayeenka sheegta islamta oo Cabdidheere la yiraahdo oo 24 saac al-shabaab Laascaanood joogta al-shabaab joogta Laascaanood alla leeyahay al-shabaab kugu caddahayo cid kasta ku ogtahay annaga ismadeedana al-shabaab maaha annaguna ma nihin innaga soo wada shaqeyno Soomaaliland ka wada tirsanayn waateen bariiskooda cuni jirnay haddaad al-shabaab nagu sheegto baynu ka wada tirsanayn laakiin aad caadaysto maalin kasta al-shabaab Laascaanood joogta oo nala dagaalamaysa waxa kula dagaalamaya ku baacsanaya waa dadkii deegaanka ahaa waa dadkii u dhashay waa dadka magaaladoodii aad saadoontid ka yeeshay ee madaafiicda ku qaraacday adigana burcaan baa la qaraacaya iyo Caynabi iyo Oog iyo Wadanago hamoodina saa la iskaga daba harayo wixii shalay waad hadasho waxa tireen xabiisnaa intaad askartaadii indhaha ka xidhay intaad hayso inteeda naba waa haydnaa qasaariga ku gaadhayna halkan ka sheegnaa cid walba oo ogtahay oo indhaha caalamku arkaan marka waxaan ku leeyahay iska daa afxumada iyo al-shabaab halkan joogta caalamka oo dhan baa ku og waxaa tahay haddii cunaqabatayn lagu saaray annagu cunaqabatayn kumaanu saarin caalamkaa ku arka Cabdidheere waxaan ku leeyahay stage ninku yaqaanahay Laascaanood dhan waa ku taqaanaa geed hoosta baad u fadhidaa anagu subag baan ku soo dhaashanay oo annaga kula hadlanaa marka insha Allah hadal xumada nabadda oo inta waa lagu dhageysanaya kulli geedka hoostaan ka qabananaay intaan lagu qaban adoo gurigiina ku baahan iska aad hooyaan halka kulli waa lagu qabanayaa isha caalamka kula socotaa dhanka kale warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo ka dhacay degmada Dayniile iyadoo dagaalkaasi ka dhacay degmada uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray saraakiil sarsare oo dagaalamay mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada Dayniile iyo saraakiisha ciidan ayaa ku dhaawacmay dagaalka halka ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 5 askari oo dhinacyada dagaalamay ka soo kala jeeday ciidanka dagaalamayo ayaa waxa kala hogaaminayay mas'uuliyiinta amniga ee degmada Dayniile iyo saraakiil watay ciidan abaabulan oo deegaanka ka tirsan sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka tirsan maamulka degmada Dayniile ciidamada dagaalamay waxa kala hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo Maxamed Madoobe oo la sheegay inuu yahay taliyaha amniga degmada Dayniile sidoo kale garabka kale waxa hogaaminayay nin magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Ajuuke oo wato ciidan deegaanka oo ka amar qaato ninkaasi waxa la sheegay inuu yahay horjoogaha dhowr kaam oo dad barakacayaal ay ku nool yihiin sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay degmada Dayniile dagaalkani ayaa waxa ku geeriyooday taliye ku-xigeenkii amniga ee degmadaasi Dayniile waxaana ku dhaawacmay saraakiil magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Iidle iyo nin magaciisa Fuusto lagu soo koobay dadka dhaawaca waxaa ku jira gudoomiyihii waaxda Ciise Cabdi ee degmada Dayniile Axmed Bacool iyo Cabdiraxmaan Ajuuke oo ka mid ahaa dhinacyada hogaaminayay ciidanka dagaalamay guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo